aan ku soo dhaweeyo jacket horta mal sanad ka hore ahayd marka halkan ka soo muuqatay ma isleedahay barnaamijkii waa loo xiisay ma isleedahay barnaamijkii waa dadku waa tabeen ma lagu soo weydiiyey ma jiraan dadku soo weydiiyey sidiyo marka hore asxaabta kale horta dhammaantiin waa salaam cabdirasaaq bilqaas iyo adigoo sidiya ee british dhammaantiin waan salaamaya iyo injineer xasan runtii way jirtaa su'aalahaasi weliba kuwa soo noqnoqday dhowr jeer ayaa la isweydiiyey mar kasta waana la weydiiyaa inta sanadkii hore barnaamijka qabateen barnaamijka noocaas ahaa google balaas ahaa maxaa ku dhacay qofkii markaas aan isku aragno aaladaha kale wuxuu ku weydiinayaa su'aashaas iyada iyo su'aalo kale laakiin barnaamijkaas waa la isweydiiyey runtii bulshada gudaheeda waa la iska weydiiyey british oo jooga maraykanka british kusoo dhawow barnaamijka ma isleedahay program noocan oo kale ah dadka Soomaalida u baahan yihiin maadaama hadda dadka inta badan Soomaalidu ay internetka iska dhex fadhiyaan oo inta badan Facebook isticmaalaan YouTube ka daawadaan ma kula tahay in program uu yahay maanta loo baahan yahay horta waan idin salaamay marka koowaad jacket cabdirasaaq qaas oo nagu soo noqon doona CD adiga waan ku salaamay absolutely horta waxa jira waa mid boqolkiiba boqol loogu baahan yahay dhowr arrimood waxa dhalinyarada Soomaaliyeed hadda isticmaala bogga isku xirka bulshada sida Facebook oo kale waxay ku kharash gareeyaan saacado ka badan saacadaha aadamaha loogu talagalay inay isticmaalaan marka haddayba saacadaha ku kharash gareeyaan maxaa u diiday inay teknolojiyada la sii qabsadaan oo Google Plus-kan ay ku sheekaystaan horumar ay sameeyaan ka hadlaan xadaarada iyagoo qaarada kala jooga marka arintani waa arin muhiim ah waana arin aan aaminsanahay inay wax badan soo kordhin doonto waa tahay waxaan maleynaa markaan waxaan dib ugu soo laabanaa bulqaas ku soo dhawow mar kale barnaamijka aad baad u mahadsan tahay waa ku maqlaynaa waana kuu jeednaa soo dhawow waxaad moodaa in codkii cabdiraxmaan furre uu igu soo noqnoqonayo markaas cilada waxa weeye fadlan waxa sameeysaa haddaad computer kaga jirto iska xir haddii uu website-ka ku furan yahay wariyaha kale ama YouTube-ka ku furan yahay iska xir sababtoo hadda intaad naga maqneed si toos ah isku maqlayn wax maaragtay cod nagu soo noqon marka fadlan xirkaas waan kugu soo noqon doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo jacket inkastoo barnaamijka daawadayaal aan rabnay inaan maanta kaga hadalno sidaan horeba u cilaaminay xorriyadda saxaafadda Soomaaliya waa maxay xorriyadda saxaafadda haddana mawduucaas uu yahay mawduuc ballaaran oo u baahan in asxaabtii kale ee barnaamijka markaa ka cudur daartay ama qaab si kale ugu suurtagal weyso sababta dhibka keentana waxa weeye waxaa la kala joogaa waqtiyo kala duwan British meeqa saacay kuu tahay hadda aniga waxay ii tahay 3 galabnimo bulqaas haye adigana xaggaaga imise saacay kuu tahay aniga waxay ii tahay 10kii habeenimo waxay leedahay 8 minute waa Sweden Britishna waa Mareykanka jacket oo Turkiga jooga jacket imise saac ku taadna waa 12kii habeenimo oo 5 daqiiqo dhiman anigana waxay ii tahay labadii duhurnimo oo dhiman 5 daqiiqo marka waa fahmi kartaan farqiga weyn ee u dhaxeeya xitaa North America dhexdeeda farqi weyn ah noo dhaxeeya marka taasaa keentay in qof walba uu waqtigii loogu talagalay barnaamijka inuu ka soo qayb galo ay saacadihii markaas ay isku dhacaan oo waqtiyadii maartay qofku isku qaban waayay laakiin waxaan jecelnahay inaan mawduuceeni ahaa xorriyadda saxaafadda oo balantu ahayd inaan ka hadalno inaan sii taataabano inagoo haddana qaybaha dambe programka dambe si fiican nooga soo hadli doona aan ku soo dhaweeyo bulqaas marka ugu horeysa bal ma qeexi kartaa xorriyadda saxaafadda marka la fiiriyo maxaa la dhihi karaa way tahay xorriyad saxaafadeed marka la dhaho aad baad u mahadsan tahay saaxiib CD runtii xorriyadda saxaafadda marka aynu qeexno waa in qofka wariyaha ah ama warbaahinta xorriyad loo siiyo oo si xor ah ay kaga hadli karaan wax walba laakiin markaynu leenahay xorriyadda saxaafadda dal walba wuxuu leeyahay xorriyad saxaafad iyadoo ay ka jirto buu haddana wuxuu leeyahay waxyaabo tusaale ahaan u diidaya oo siyaasad gaaray leeyihiin tusaale ahaan waddankan Sweden
aan ku suganahay marka laga hadlayo xurriyadda saxaafadda ama xurriyadda hadalka oo kale waxa uu kaalinta koowaad uga jiraa wadamada macnaha waxa weeye ku dhaqma isla mar ahaantaana amba saxaafadeeda aysan lahayn wax faafreeb ah iyadoo haddana marka dhinac siyaasadeed ahaan aad ka fiiriso ay noqonayso macnaha in tusaale ahaan waxaan ay dhahaan afka qalaad ay ku yiraahdaan jale pornography waxay dhahaan iyo hadallada macnaha waxa weeye naceybka uu ku jiro ama cunsuriyadda in ay wadankani ay ka mamnuuc tahay iyadoo wadankani haddana xor uu yahay oo qof walba uu sidoo doona uu u hadli karo ama warbaahintu ay macnaha waxa weeye ay u hadli karto sida ay doonto marka aan leeyahay sida ay doonto waxaa jira wadanka qaanuun ba u degsan qaanuunka waa in ay raacdaa laakiin waxyaabihii dee wax ka badbadiso oo gaara oo macnaha waxa afkan qalaad lagu yiraahdo personal attack ama waxa weeye shakhsi inaad weerarto taasoo kale waxa weeye waa ka mamnuuc marka aynu ka hadlayno xurriyadda saxaafadda marka aynu dib ugu soo laabano hadalka kolay saxiibadayna way la qaybsan doonaane dalka Soomaaliya ama dalkeena Soomaaliya oo kale markaynu dib ugu soo laabano xurriyadda saxaafadda waxaynu ka fahansanahay runtii wax aad u khaldan sababtoo ah xurriyadda saxaafadda waxaad arkaysaa wariyayaashii in iyagoo aan u kala aabayeelayn cidna waxay doonaan ay isaga hadlayaan hadhowna ay ku doodayaan waxa weeye saxaafaddii baa la caburinayaa iyo xurriyad saxaafadeed wadanka kama jirto runtii wadamada hadda wadankan aad ku nooshahay Canada saaxiibkay fureen Mareykanka Turkiga wadan walba waxa weeye xurriyad saxaafadeed iyadoo ay ka jirtaba haddana waxa weeye qofku oo saxaafaddu ay control ay leedahay waa ku soo kollay waa sii faahfaahin doonaa inta kale aan u daayay saaxiibaday waa tahay Axmed Jaakad bal marka xorriyadda saxaafadda aad tiraahdo wadankeena hadda aad maqlaysay sida Sweden ay ka tahay iyo wadamada kale oo aan maqli doono sida ay ka tahay ma isleedahay saxaafadeenu waa xor wariyaasheen way fahamsan yihiin waxa la yiraahdo xorriyadda saxaafadda taa ma ku muuqataa sidii horta waad mahadsantaa runtii horta saxaafadda xorta ee madaxa bannaan ee qaanuunku ogol yahay marka hore waa midda bulshada u gudbinaysa macluumaadka iyo wararka iyadoo ilaalinaysa oo dhowraysa isla qaanuunka ama xeerka saxaafadda laftirkeeda u degsan marka hore markii qaanuunka guud ee dalka u degsan la dhowro xeerka saxaafadda la dhowro waxay noqonaysaa marka oo qofka ku shaqeynaya uu ilaaliyo in saxaafad xor ay timaado qaanuun kasta oo adduunka ka jira wuxuu leeyahay xeer hoosaadyo fara badan ayuu leeyahay waxaana maamula qaanuunka guud ee dalkaas ka jira ayuu hoos yimaadaa xeer kasta oo dalkaas lagu maamulayo qaybihiisa kala duwan sida xeerka maxkamadaha xeer hoosaadka baarlamaanka kan saxaafadda iyo waxyaalaha la midka ka Soomaali ahaan markii la yiraahdo runtii inagu bulshada caalamkan kala simannahay wax badan laakiin dhibaatadana haysaa waxay tahay qaanuunkii guud ee dalkeena ayaa meesha ka baxay iyo ciddii dadka ku maamula lahayd intaasaa meesha ka baxday qofku aqoon kasta oo uu leeyahay haddii uu waayo qaanuun uu ka baqo xushmadiisu waa yaraanaysaa si uu wax doono u samaysto marka qaanuunkii guud ee dalka ee xakamayn lahaa hay'ad kasta oo ay warfaafinta Soomaalidu ka mid tahay ayaa meesha ka baxay qofka saxafiga ah wuu og yahay qaanuunka saxaafadda inuu yaqaanna waa laga yaabaa dad aan aqoon inay ku jiraanna waa macquul oo way jirtaa taasi laakiin waxaa meesha ka maqan qofkaasi xogtii uu isdhihi lahaa ama xeerkii uu isdhihi lahaa haddii aad waxaan halayso oo aad xumayso maanta berri buu kaa dambeeyaa oo maxkamad baa lagu saarayaa fikirkii ahaa ayaa qofka ka maqan laakiin dadka iyo adduunka waxba annagu kama leedano waa mahadsantaasi waa tahay dadka qaar baa isoo weydiinaya oo leh haddaan rabno inaan aan comment ama hadal aan ka dhahno barnaamijka xagee kala xiriiri karnaa oo isoo weydiinaya su-aashaas waxaan dhihi lahaa hello waxaan jeclahay inaad maqlaysaan waxaan dhihi lahaa waxaad samayn kartaa qaybta YouTube-ka ee barnaamijku uu ka socdo hadda aad ka daawanayso qaybta hoose waxa ku yaala meel loogu talagalay in comments-ka laga bixiyo
marka meeshaas qofku ku qori karaa waxyaabaha uu rabo ama su-aasha uu rabo ama commentiga uu rabo inuu bixiyo halkaasuu ku qori karaa deetana waxaan usoo gudbin doonaa halkaanaan kusoo gudbin karnaa marka taasaan u sheegi lahaa dadka isoo weydiinaya qaabka ay comment u bixin karaan british aan ku laabto british maraykanka bal iyo xorriyadda saxaafadda wax yar brief naga sii waad mahadsantahay cd horta laba su-aalood oo muhiimaan anigu haya oo u baahan in la isweydiiyo su-aasha koowaad waxay tahay waxaad maqashay freedom of speech waa maxay freedom of speech xorriyatul qowlku muxuu yahay waa su-aal u baahan in si qoto dheer looga fakiro laakiin waxaa daba taagan wax su-aal mid kaloo la yidhaahdo there is no absolutely macnaha freedom of speech marka beyond ay leedahay mid kasta waxay leedahay meel ay hakad ku tahay aafin qofku absolutely freedom ma jirto waxaa jira waxyaabo aadan taaban karin marka annaga jacketna aan ku raacay waxaa jira waxaan anigu aaminsanahay iyo saaxiibkay bulqaasba warbaahinta ka jirta dalkeena hooyo warbaahinta dadka ka shaqeeya waxay khalad fahansan yihiin xadkooda inta uu leegyahay maxaa ka xaaraana maxaa u xalaala waxaa kaloo meesha ku jirta dadka aynu u waranana waxay ku wareersan yihiin warbaahintii waayo waxaad arkaysaa qof warbaahinta wax mamnuuc ka ah intuu kuula yimaado adigoo wariye ah ku dhahaya ii samee warbixin iga samee isagu waan gartay aqoon daraa haysa oo moogtahay xaaraanta iyo xalaasha ma kala yaqaano markii waxaan ka hadlayaa warbaahinta waxaa lagu ogol yahay inaad ka hadashid iyo waxaan lagu ogol inaad ka hadashid laakiin adigii baa la rabay in aad markaasi tafatirtid aad ogaatid waxaan sharciyan inay bannaan tahay iyo inaysan bannaanayn tusaale yar kuma baan siinaya waxaa jirta waxa la yidhaahdo breach of confidence haddii shakhsi wasiira aad gurigiisa tagtid oo aad xogtiisa soo xadid oo aad dadka macnaha u soo gudbisid adiga ma khaldan mise waxaa khaldan wasiirkii su-aasha adaa khaldan ba awalan maxaa yeelay waxaad jebisay private property baad gashay breach of confidence-ga meesha ka saartay nin dhan baad macnaha wixii personal u ahaa ugu tagtay gurigiisa haddii uu xaaraan sameynayo oo xafiiskii bulshada ugu adeegayay uu musuqmaasuq ku wada taa la garay marka dadka waxaa iskaga qaldan xaggee warbaahintan aynu leenahay freedom of speech ma waxa freedom of speech laga wadaa wax kasta oo maankaaga soo maray inaad sheegtid mise waxaa jira waxyaabo aan loo baahnayn aada taaban karin dib aan ugu soo noqdo dalka maraykankeeda waxay ga weydiisay dalka maraykanku ma sheegaan waxyaabaha xasaasiga ee dalkooda quseeya sababtayna u shiin xadkooda inta uu leegyahay markay noqoto wadaniyadana way u tafaxaytaan oo dhanka wadaniyadda waxay mar ay taageeraan qarankooda marka xorriyaddii iyada oo ay jirto oo ay ku dhaqmayaan bay haddana waxay og yihiin xorriyaddoodu xadka ay la eg tahay iyo haddii ay xadkaa ka gudbaan waxaa la yidhahdaa you cross the line qofkuna hadduu xadka ka gudbo wuu khaldan yahay marka waxa weye warbaahinta soomaaliyeed dadku markay soo galeen waxaa ugu wacan iyadoon jirin macadyo qualitygooda ay wanaagsan yihiin qof kastoo xubo suxufinimo hayso laakiin aan ku fikirin war suxufi noqo laakiin maxaa lagaga baahan yahay maxaa koo xaaraana maxaa koo xalaala intaa qofka hadduu soo fahmo waxaan aaminsanahay xorriyatul qowlka rabsaan bay u fahmi doonaan waa hagaag waa warcad bal aan ku soo laabanno dadka qaar waxay isweydiinayaan dalkii maadaama uu hadda saxaafad badan ay ka jirto oo qof walba hadda ay u fududahay in inta waddanka inta qaato TV ama radio inta qaato waddanka geeyo oo ka samaysto oo ay aad u fududahay taama la oran karaa xorriyaddii meesha maba taallaba oo qof walba wax xakameynaya sida jaakad uu sheegay wax xakameynaya ma jiro marka hadda ma la oran karaa Soomaaliya saxaafadeeda waxay ka gudubtay xayndaabkii xornimada ama wixii la dhihi karo xornimo oo hadda waxay u gudubtay in qofkii idaacad leh ama television leh qofkuu rabana uu caayin karo qofkuu rabo uu weerari karo qofkuu waxa uu ka sheegi karo bulqaas runtii waxaan oran karaa ha sababtoo aan ha u leeyahayna waxa ay tahay run ahaantii marka aad u fiirisid idaacadaha kaliya ma ahan saxaafaddu ama warbaahinta marka la yiraahdo waxa soo galaya waxa waaye printigii joornaaladii baa soo galaya waxa soo galaya qaabkan hadda electroniga ama internetka oo website-yada soo galaya
marka Soomaalidana waxaan oran karaaba waa dadka adduunka waa sida anigu aan qiyaasayo hadda hadii wadan inta website aan leenahay ama inta mareeg aan leenahay leh ma jira adduunka taan u malaynayo waa sida aan aniga qiyaasayo laakiin waxde research ama cilmi baaris oo arinta aan ku sameeyay malay laakiin fikirkayga haddana intooda badan marka aad eegto waxa ay qorayaan waa waxaan la hubin waa wax ay ku eeganayaan waxa weeye shilinkooda iyo lacagta ka soo galaysa waa marka aad si aad u qoto dheer aad u sii eegto waxaad leedahay waxa weeye mas'uuliyadii wadaninimo iyo tii shakhsinimo intaba waa ay ka maqan tahay waayo marka la leeyahay warbaahinta waa ay kala duwan tahay waa ay fara badan yihiin anigoo wariye ah baa soo galaya ninka cameramanka warbaahintii kugula jira kii maxaa leedahay editorkii warbaahintaas uu qayb ka yahay kii maxaa leedahay journalka qorayay kii website qorayay intaba waxa way warbaahintii ka tirsan yihiin marka haddana waxa ay ku kacayaan waa wax ka baxsan waxa weeyaan aniga taasna waxaan u sababayn karaa Soomaalida inta badan waxa dilooday waxa lagu magacaabo qabiilka qofka wariyaha ah haddii si kasta xataa wadani uu yahay ama dalkiisa uu jecel yahay oo qulubtiisa ilaah baa daalacanaya uu yahay qof daacad ah oo wanaaga ka talinaya waxa weeye qof kale wuxuu u arkayaa in uu markuu arintooda iyo waxa ka hadlaba in uu qabiilkiisa iyo waxa weerarayo marka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay wariyihii qabiiliste ama qofaan macnaha bulshada toos uga adeegay marka runtii ma oran karo warbaahin adduunka waan la jaan qaadnay oo waxa way dhinaca warbaahinta Soomaaliya aad bay u horumarsan tahay dhinaca teknolojiyadda waan ku horumarsanahay laakiin waliba waxa jira caqabadihii ama dhibaatooyinka waxa marka aad sameynaysid wanaag marka ka eegtidna waxa way qalabkan electroniga ama meediyaha macnaha waxa way waa safe laba af la weey hadba dhinacii aad u adeegsatid waxaan dib idinkugu xusuusinaya waad xasuusataan dagaalkii ka dhacay Rwanda 1994 ilaa 800,000 oo qof oo dad ah ayaa lagu laayay idaacad la yiraahdo hadda magaceeda waan yara ilowsanahay waa qayb weyn ka qaadanaysay hurinta iyadoo dadka xataa macnaha waxa weeye gabaad ka dhiganay oo ka cararaya qaxay ku sheegaysay cockroaches oo af qalaada oo Soomaali ahaan markaynu aynu u fasirna ay dhahaan baranbarooyin waa kuwan baranbarooyinka halkan ay marayaan halkaas ay galayaan macnaha waxa weeye waad garan kartaa warbaahinta Soomaaliyana markaan si u fiirino tii waxba kama duwan sababtoo ah cid xadeynaysa ma jirto waxay arkaan wadan iska free ah oo dawlad xoog badan aysan ka jirin marka qof walba sidoo doono u hadlaya hadhow hadii la qabtana waxa weeye iyaga ugu qayl dheer oo waxa weeye waana la weeraray leeyahay anigu laftigayga qayb baan ka ah oo wariye Soomaaliyan anigu wariye Shiinees samihi wariye Mareykan ah mihi haddana waxaan jeclahay in walaalahayga kale warbaahinta igu jira ay ogaadaan oo ay bartaan oo ay xataa at least haddaysan soo marin iskuulo waan fahmi karnaa Soomaalida badanaa waxa weeye wariyaasha Soomaalida waxay ku soo galeen shaqada wax la yiraahdo on job training waxa weeye qofkii isagoo shaqaynaya haddana shaqadii uu ku tababaranayo marka haddii qofka shaqadii uu ku tababaranayo adduunkaba waxa weeye way dhacdaa dad maxaa la yiraahdaa annagoo kala ah oo saxaafadii haddana ku jira laakiin dadka waxay nagaga fiican yihiin waa dad aqoon ahaan dhisan at least markay ugu yartahay waxa weeye secondary macnaha waxa weeye dugsi sare ka soo qalan jabiyay wax kala fahansan cilmi baaris sameeynaya oo wixii dabagalayo wixii uu xiiseenaya laakiin anagu taa kollay inta aan arkay ma muuqato waayo wax badan baa saxmi lahaa dadku markay waxa weeye ay cilmi baaris ay sameeyaan oo wixii xataa mihnadooda ay tahay oo macnaha waxa weeye shaqadaas ay ku tababaranayeen haddii ay cilmi baaris ay ka sameeyaan cilmi baaris waxaan ka wadaa in shaqadii meedihii ay gudaha u galaan oo ay baaraan horta muxuu yahay maxaa ka ku xalaal ah maxaa ka xaraan ah maxaad sheegi kartaa maxaa lagu qabsanaya maxaa runtii xataa marka qof war uu diyaarinayo warka marka la diyaarinayo tusaale ahaan
qofka bini aadanka ah waxaa laga doonayaa warka uu diyaarinayo iyadoo shuruudaheeda leh oo waxa waaye 5 WH bay dhahan ingiriisigu oo su'aalaha shanta ah oo tusaale ahaan maxaa dhacay xagee ka dhacay sidee u dhacay goormuu dhacay iyadoo qofka uu adeegsanaya qaab war diyaarinta qaabka uu adeegsanaya baa haddana warkii waxa la doonaya warkan adiga aad sheegayso waa in isweydiisaa muxuu faa'iido u leeyahay bulshada oo uu u soo kordhin karaa maxaa khasaare uu u leeyahay oo wax markaa dhinaca kale aad ka eegto oo bulshadii waxa weeye warkan ma yahay war dad isku diraya ama fusuq bulshadii ku baahanaya ama dhaqankii iyo diintii iyo waxa weeye ama dadnimadeeni meel ka dhac maxaa la yiraahdaa u geysanaya marka intaas oo dhan lama eegayo nin walba wuxuu eeganayaa shilinkiisu eeganayaa wuxuu doono noqoraya marka waa hashi macnaha waxa weeye halaha kale cunto cabaaday miyaa la oran jiray saas ay ku socotaa waa ku gartaa maadsanta bulqaas waa ku soo laabanaya asxaabta qaar oo programka rabay inay ku soo biiraan waxay leeyihiin xoogaa way nagu yar adkaanaysaa sababtana waxa weeye wax igara lahaada wax yar baan rabaa inaan u sharaxo programkan marka qofku ku soo biiraayo haddii aad ka soo gelaysid smartphoneska ama waxyaaba telefoonada sida iPhone oo kale ama telefoonada noocaas oo kale aad ka soo gelaysid waxaa laga yaabaa inuusan waxba ku weydiin ama maaragtay blogging iyo waxba uusan ku weydiin oo si oromariga uu soo qabsado laakiin haddii aad ka soo galayso PC-ga ama computerka aad ka soo galayso wuxuu kaa rabaa in qaybta codka aad ku soo darto computerkaaga oo aad maaragtay ku soo shubto qaybta codka inaad maaragtay computer ku shubto taasna waxa ugu soo dari kartaa markaad click siiso oo damacada programka inaad ku soo biirto wuxuu ku weydiin doonaa inaad download garayso oo computerkaaga ku shubto qaybtaas markaas sug wuxuu ku leeyahay waqti qaadanaysa deetana markuu dhameeyo mar labaad xir programka dhan xir ee haddana dib mar labaad ugu soo laabo marka kuma weydiin doono marka taas ayaan rabay inaan u sheego asxaabta ka rabto inuu ku soo biirto midda kale YouTube-ka qofka raba inuu ka bixiyo comment ka bixiyo sida caadiga ah waa ognahay YouTube qof aan YouTube lahayn comment kama bixin karo marka haddaad rabto inaad comment YouTube ka bixiso waa inaad adigu marka hore YouTube leedahay ama Gmail-kaaga inta gashid deetana markaa qaybta YouTube-ka aad kasii doorato oo markaas sidaa ku gashid kadibna aad comment ka bixiso taas waxay la mid tahay adoo dhahaya Twitter-na haystaa aan waxaan rabaa Facebook-na comment ka bixiyo labadoodu waxaan maleynayaa inaysan maaragtay mid walba wuxuu rabaa inaad gashid gudaha u gasho British maxaa ku CD horta su'aal muhiim ah keentay oo u baahan in la qaada dhigo la gorfeeyo anu markaas fikir ahaan sa ila tahay baan sheegaya warbaahinta Soomaaliyeed khasaare iyo faa'iido way la timid khasaaraha laakiin hadda soo batay tusaalahan baan ku siinayaa dhammaan website-yada lagu qoro afka Soomaaliga inay ceeb iyo xumaan keenan maahna wanaag ma laha horta taasi waa kow sida u leeyihiin waxa keenaysa waxay u bateen kuwa qabiil iyo qoys lagu furo nin kasta tuuladu ka yimid inuu ku furto iyo kuwa loogu talagalay in dadka lagu aflagaadeeyo oo lagu caayo oo lagu guumaysto la yiraahdo haddii aadan sidaa ii yeelin haddii aadan sidaa ii samaynin wallahi baan ku dhaartay fariin baan ka soo qoraya warbaahin la isugu dhaarnay anigu way ugu cusub tahay waa mid maxaa soo haray telefishinadii iyo raadiyihii marka ama idaacadihii kuwaasina waxay u kala baxeen kuwa shakhsiya oo dana gooniya laga leeyahay oo lagu talagalay in xumaato tusaalahan kale waxa dadku isweydiiyaan idaacadda afdheer war maxaa afdheeridu hadda dadku khalad fahmeen afdheeridu ma aha inaad qof intaad tagtid tiraahid idaacadaasaan ahay waan afdheerahay waan ku soo caay ee waxa weeye inaad xogta soo ogaatid soo qortid itusoo itaabsi xigmadda waxay tiraahdaa what's the need with proof maxay tahay runtaad sheegaysa dad caddayn ku muujinaynin marka waxaan ka hadlayaa idaacadii waxaad arkaysaa waa kuwo u taagan inay isa soo saaraan laakiin aniga ilaa iyo hadda kelimadda iga wareerisan raba inaad jacket iyo bulqaas iyo CD aad iga jawaabtaan waxay tahay ma ceeb iyo aflagaadaa magac lagu yeeshaa mise cilmimaa magac lagu yeeshaa waa inaad markaad rabtid inaad soo caanbaxdid ay ku soo saarto aqoontaada cilmigaaga wanaagaaga iyo waxa aad bulshada ku soo kordhisid gaar ahaan markaad warbaahinta ku jirtid maqaalkaagu ha noqdo mid wanaagsan waa ila socotaa ha noqoto warbixintaad diyaarinaysid mid ugu jirto dan bulshada laakiin haddii warbixintaadu ay tahay midaad sharur ku soo qaadatay oo aad doonaysid inaad koox gooniya markaasi u isticmaashid dee TV-gina xadgudub baad ku samaysay
sharuurkaas inta dadkana dhegaysanaya ama daawanaya laga yaabo inaysan aqoonin yaa noo qeexaya sharuur waa maxay horta sharuurka kelimada sharuurku waa dhaqaale la siiyo wariyaha oo la yiraahdo ku aamus waxay Soomaalidu tiraahdaa haddii qof uu ku laalisho afar xuna xisho hadduu qof ku laalisho inaan amaantid ma xumaantiisa ma sheegi karaysid marka aniga ma eedeeyo dad waxay guraan British maxaa dadka sharuurka markii soo eedeysaa anigu waxaan eedeeyaa qaataha waan eedeeyaa waxaan laakiin markasta ku andacoodaa in qaataha duruuf marka qaarkood ay keento milkiilihii idaacad kasoo ayaan la been la isku sheegin idaacadda waxa la soo gal facaana iska dhici la fahansanad waxaan soo xasuuday dukaankii gaalkacay faca iska dhici macnaha way mushaar ma leehid marka wariyihiina uu ku qasban yahay inuu sharuurka soo qaato waxaan kaloo la yaab leh oo aan la yaabaa wariye ayaa badan aqoonta saxaafadda aan aqoonin baa wuxuu helayaa kaamero wuxuu ka soo duubayaa meel fog magaalada tuulo la yiraahdo dhaafin wariyaha caanka laba maalmo soo tiro maanta dhibaatada in haysata halkaas waxa weeye qofku markuu hal habeen ka hadla idaacad wuxuu u maleeyaa inuu yahay wariyaha adduunka ugu khatarsan wuuna istilmaamaa aw cilmigi aw waxbarashadii marka saddexdaas oo kala qaybsan aniga waxaan aaminsanahay dhammaan website-ka inuu khasaaro inuu keenay maahan uusan faa'iido ba lahayn waa tahay waxaan ku laabanayaa sharuurka waa isla garanay intaas waxaan rabay inaan dadka daawanaya aan fahamsiiyo sharuurka aniga waxaan u haystaa inuu yahay lacag wariyuhu uu ku gato macluumaadka uu gudbinayo macnaha inaad gadatid macluumaadka aad gudbinaysid macnaheedu waxay tahay in wax Allah iyo wixii qofka aad lacagta ka qaadatay uu sheegay uu rabo in sideeda inta u qaado aad idaacadda ama TV ka sidayso taasoo ah waxbaad cuntay marka jacket ayaa madaxa lulaya jacket maxaad ku daraysaa CD horta qayb kasta oo saxaafadda ka tirsan caawa meeshaan kuma falaqayn karno waa gartay aan iyadoo dhan ka wada hadalnana waqti dheer bay qaadanaysaa xorriyaddii xoogaa waxaa moodaa xorriyadda laftigeeda inay soo galayso haddii qofka lacag la siiyo xor miyaa maya xornimo ma jirto lacag haddii lagu siiyo xornimo ma jirto waayo newska ama akhbaarta aad wado maalinta daawanayaan qofka waxaan qabaa haddii aniga tusaale ahaan hadda qof uu igu khaldamo kolay tan Soomaaliya waxa weeye kolay Soomaaliya maxaa la yiraahdaa waan garan karaa dalkeennii oo sida loo xaliyo way iska yara adkaanaysaa laakiin dal dibadda hadduu joogo waxaad awoodi kartaa inaad cadeymihii aad soo qaado qofkaasi aad maxkamad la fuusho taasaa looga bixi karaa baan oran karaa kusoo dhawo barnaamijka Cabdiwali aad baad u mahadsantahay CD waa dhawahay waan u mahadcelinayaa asxaabta kale British iyo Bulqaasi iyo Jacket sida quruxda badan aad dooda u wadaagaysaan waana ka xumaa inay idin ka soo daahay laakiin waa idin dhageysanayay waa ku soo noqonayaa soo gabagabaysto horta khadar jawaab fudud baan siin lahaa waxa haduu marba yahay horta uu yahay qoraal jawaab qoran yahay cadaynta waa la heli karaa ugu fudud waa taas sababta waxa weeye waa printing media waxa uu ka hadlaya haday tahay printing media qofku wuxuu awood u leeyahay inuu goowaabin geliyo warbixintii uu koobiyeeyo save garaysto meel dhigto barika maalin uu cadayn ahaan uu isticmaalo anu taasaan aaminsanahay oo waa mugtay muuqaalkii xaqad ka arkaysa codka aad ka save garaysan lahayd uma tanna waxaad save garaysan kartaa qoraalka gaar ahaan inta markaa tuducaadi markaasi ku qaabilsan ee aflagaadada lagu geystay taa markaan ka tago aniga go'aamadu waxay tahay horta waxbarasho faarinta koobaad waxaan ku boorinayaa warbaahinta Soomaaliyeed dhamaan wariyaasha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inta alla waxbaray ee hadda intay haysato inay ku kororsato in kale horta waa mid waa kororso intaad haysatid waa in fahamsama mid kale aan kugu soo noqdo waa fahamsanahay waa in saxaafad dadku wax barto waa inay magaceeda ka dhabaysaa oo saxaafadu noqotaa meel dadka wax barta absolutely sababtoo ah taas waa dhabaha kaliya ee lagu badbaadi karo waa tahay garyare inkastoo nala socotay oo barnaamijka daawanaysa wuxuu ku saabsanaa inkastoo dadka su'aalahoodiina ay soo badanayaan barnaamijku wuxuu ku saabsanaa xorriyad saxaafad Soomaaliya ma ka jirtaa haddii ka jirtana xorriyadda saxaafadda Soomaaliya sidee looga dhaqmaa maxaan loo yaqaan xorriyad saxaafadeed waa maasan tahay marka hore xorriyadda saxaafadda Soomaaliya way ka jirtaa iyadoo waliba xadka dhaaftay mid waliba waxa ka jirta aan dunida kale ka jirin waxaadna ka dareemaysaa baryahan ugu dambeeyay saxaafadda heer waxa ay gaartay ay xargaha goosatay
iyadu ay gaartay inay dhibaatayso xorriyaddii intay ka badatay bulshadii kale ee ku talax tagtay saxaafadda Soomaaliya marka sida maadaama ay ka jirto xorriyad saxaafadeed haddaan u soo laabanay sidee loo isticmaalaa waxa loo isticmaalaa wado qaldan baa loo qaaday xorriyaddii saxaafadda waxaana dadka qaarkood ay u fahmeen ma aha in kulli ka dhigayo waxay dadka qaarkood saxaafadda u fahmeen CD aad wax ka sheegto xorriyadda saxaafadda kuwa ogol bay u qaateen madaxweyne qaran oo wax ka sheegtay saxaafadda kuwa ogol bay u fahmeen dalka amnigiisa oo aad qalqal gelisid xorriyadda saxaafadda kuwa ogol bay u fahmeen waxaas oo dhanna de marka aad fiirisid dunida meel ay ka jirto male anaada dalkan ku suganahay Netherland qofna waxa xorriyadda saxaafadda way jirtaa laakiin maxaa haddana ku sii jira ilaa iyo waxay xorriyad saxaafadeed ama xorriyad adiga aad haysataa inta aadan ku talaxtay karin ama aadan xorriyadaadu aysan dhibaataynin qof kale fiiri xorriyadaadu waa ilaa iyo inta aysan qof kale xanaf ku noqon tan Soomaaliya xataa laftigeeda xeerkan inkastoo aan la meel marin saxaafadda imika qoran ee doodu wali ka taagan tahay wuu ogol yahay xorriyadda saxaafadda laakiin waxaa ku hoos jirta dadka qaarkiisna ka maqan inay dhowraan xorriyadda saxaafadda siday u qaateenna ma ahay inaysan dadka kalena ku dhibaatayn si aan iyagana loo dhibaatayn oo aan loo dilin oo loo xirin oo aan maaragtay loo dhaawicin sidoo kale waxa ugu yar aan loo karahsan oo loo dhibsan imika saxaafadda Soomaaliya waxay maraysaa heer qofka sheeganaya xitaa uu ka xishoodo inuu yiraahdo wariyaan ahay maxaa yeelay siday u isticmaaleen baa wada fool xun noqotay tusaalayaasha ugu dambeeyay waxa kamid ah wadanka wax badan baa ka soo maqanay laakiin website-yo xargaha goostay baa bilowday oo ciwaanadooda ugu balbalaaran uu noqday fadeexad iyo sirfakatay iyo haduu alla waxa sheegayaan iyo wartanus iyo garyare qof kamid ah baadna su'aashaasna soo weydiinaya oo leh musiibadan hadda saxaafadda haysata saxaafadda ku dhacday Soomaaliya gaar ahaan wuxuu leeyahay qaybaha website-yada ma la xakameyn karaa sidee ku dhici kartaa dawlad iyo dad inta la tashto sidee ku dhici kartaa in loo xakameeyo ma dhici kartaa isleeda aniyahow haddii ay wala xakameyn karaa waxaan adduunka la xakameyn karin ma jirto laakiin de waxay qaadanaysaa waqti badan bay qaadanaysaa dawladdii xakameyn lahayd de nooma dhisno ma adka wadanka gudihiisa waa laga xakameyn karaa inaan laga booqan ama laga daawanin kuwa waxa ku dhaqmaya oo internetyada waxa loo isticmaali karaa shirkadaha internetka bixiya dunida kale ay xarumaha ku leeyihiin waxa loo isticmaali karaa haddii aanu helnay nidaam adag in shirkadaha hostingka iyo domainka si laftigooda lala xiriiri karo looguna wargelin karo website-yadan ay domainka iyo hostingka ay siiyeen inay sameeyaan dhibaatooyin dad kale ay ku dhibaataynayaan xorriyadda ay qaladka ka fahmeen midda kale ay jirtaan iyo waxay tahay CD iyo Bulqaas iyo British taakadan idin la wadaagayo warta website-yada sida u tiri badan yihiin looma yaqaan dadka iska leh magacyadooda mushkiladda ugu badan waa taas saxaafadii oo dhan waxa dhaawac gaarsiinaya ninaan la aqoon oo computerka gadaashiisa fadhiya baa magac iska sameeysta website dabadeedna wuxuu soo qoraya wax allaala wuxuu qoro waana wariye buu ku leeyahay laakiin isagu isma sheegayo jaamac inuu yahay waxa laga yaabaa mid ku dhinac fadhiyo inuu yahay waxa laga yaabaa inuu dariskaaga yahay laakiin shilamaadkaas rubaa isaga iyo Google-ka uu lacag ka qaataa isog laakiin waxa uu sameeyay laftigiisa og inay caayb tahay bal arwa kaas website kamid website-yadan ayada ku talax tagay gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah sharafta badan ee karaamada badan beenta ka soo qoriyay ninba ama qof dhigi kara ma jira ana iska leh sababtu uu ogyahay inuu been sheegayo oo wuxuu rab ku qaraabanayay bulshada ku ciiboobayo moogta marka saxaafadeeni waxaan noqonay ariga weerku u dhex galay sidaan saga qabanana tale u baahan tahay doodaha noocan oo kale u baahan tahay ninka laftigiisu saxaafadda maaragtay qayb ka noqonayo marka halkan yimaado laftigeeda waxaan u qabaa doodahan oo kale aniga in la isku shaandheeyo oo ay ka soo bixi karaan ka saxda ay kana saxda ahayn nin waliba markaas uu soo galana wuxuu la iman karaa doodahan oo kale warta xagee ka shaqeysaa sidee u shaqeysaa way imanaysaa xaqiiqada laftigeeda moogta waa marka waa bogaadinaya doodaha noocan sidaan in halkan la iskala xisaabtamo ha halkan shaashada waa lagu xiriiri marka aniga aan soo istaago garyara aan ahay waa muuqanaysaa marka waxaan ku talax tagay waa muuqan kartaa adii kar wargareer halkaas aad waa dhibaato ka geeristo waa fahmamu laakiin nin aan la aqoon laakiin computer gadaashiis fadhiyo aduu kala adigu ilaali ma ilaalin kartid dadka Soomaaliyeed hadayna daawanayaan waxaan leeyahay yaan la isku qabanin saxaafadda Soomaaliyeed oo ayadoo duuduuba
yaan naloo dhiibin bamka ee oo la dhihin kulligiin baa eedaysanayaale hana la kala saaro oo kan xun iyo kan fiicanna hala sheego waxaan kaloo rabaa hadaayta hadal aad iga hormariseen oo aan raba inaan ka hadlo sharuurka waad ka hadlayseen oo British iyo adiguba aad ka hadasheen iyo asxaabta kale anigu waxaan qabaa wariyaha kuma eedaysna sharuurka laakiin waxa ku eedaysan milkiilaha warbaahinta u shaqeeya wariyaha sida aad ogtihiin imika telefishinada ama idaacadaha ama website-yada laftigooda ama wargeysyada waxa jira oo dhan wariyaha markuu reporterka warki keeno uu soo dhiraandhiriyo oo waqti geliyo oo soo diyaariyo meeshii uu ugu talagalay inay ka baxdo kama bixi karo sababtoo waxa la leeyahay aw lacagti ilaa aad soo dirtid oo gacanta lagu dhigo lama sideeyo garyar isla su'aashaas ayaa waxna soo weydiiyay qof baan soo weydiiyay waxaan jeclaa adoo sii wadan doona bal su'aashii inaan soo muujiyo oo halka ka aragtaan ya u jeedo si fiican u jeedo isha noo marin kara waxa ku qoran magacaygu waa Raaga Cali Dheere soo saar ana u jeeda magacaygu waa Raaga Cali Dheere British saaxiib sharuurkaad ka hadashay sharuurka ma wax ay wariyaasha bes baa mise waa wax dadka leh warbaahinta ay ayagana wax kala wadaagaan oo ay wax kala wadaan oo ay ogyihiin yes ma wax wadaan maasta waa su'aasha way u socotaa waa ku soo noqona British garyar ha dhamaysto halka ka sii wad garyar raaga waa horta waa nin saaxiibkay waa u mahad celinayaa waa nin kamid ah bahda media ay wadanka Netherland ku nool wax badan waa og yahay wuxuu su'aashan loo weydiiyay inuu dad kale wax u bidaamiyo waana run wariyaasha hadda jira iyagu sharuurka mas'uul kama aha sharuurka hadaan u jilcino dadkana daawanaya qaar baa fahansaneen bahda wariyaasha isla ogay waa lacag la siiyo wariyaha ama warbaahinta si warkaasi u baxo waxa hadda ay baasha isku bedeshay milkiilayaasha iska leh iyaga soo dalbada waliba xataa waxa jiraba haday baasha aad ku taqaanin qofku inuu farba iska bixiyo imika waa cadad go'anba waxa uu leeyahay intaas daada bixinin warkaagu ma baxayo barnaamijkaagu ma baxayo marka waa wax degsan oo kamid ah telefoonka igu soo dir wanka ninka la yiraahdo CDO maya garyare waxay sheekadu maraysaa liigu yiri mar aan asxaab la sheekaysanayay in maadaama Soomaaliya mar ay ka socotay in telefoonka lacag la isugu diri karo macnaha telefoonka gacanta telefoonka lacag la isugu diri karo in la yiraahdo aniga hadda warkii aan u sii ordiyay telefoonkayga waa kana iga daba keen way jirtaa hadaad bixina subaxa ku xiga ama warka ku xiga adiga war laga sameeyna oo hadda waxaan maqlayaa in la yiri caawe ama habeen dambe hebel galeynaa la socdo haduu lacag bixin marka wixii waa la farbeelay NCDO orta raaga waan salaamayaa jawaab koobanna waxaan isku dayayaa inaan ka bixiyo inkastoo la sharxay sharuurku wuxuu yahay horta sharuurka waagii hore waxaa iska lahaa oo keliya wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta laakiin la iskaga daba yimid oo macaankeedii markii la arkay milkiilayaashiiba hadda ka daray oo kuma eka macnaha waa siduu garyar sheegay sababtana wax kale maane waxayba arkeen ninkii aan mushaarka la siinin lacag fiican haya wallahi janna meesha ka furmatay yiraahdeen hadda waxay noqotay sharuurka laba loo kala qaybiyay sharuurka idaacadda oo macnaha ila socaya oo agaasimaha iyo milkiiluhu ay leeyihiin iyo sharuurka wariyaha dadkii xataa wararka laga qaadaya sixir barar baa lagu sameeyay marka raaga waxaan leeyahay sheekadu way alamtaro way dhaaftayoo wariye hadda way ka tagtay saddex bay noqotay agaasimaha milkiilaha iyo wariyaha waxa haddana ka sii daran oo caqabad ka sii jirta technician-kii abartay ninka farsamayaqaanku intiisuu rabaa madaxa wararka idaacaddu intiisuu rabaa madaxa wararka idaacaddu intiisuu rabaa ninka barnaamijka caawa la soo deynayo oo ah barnaamij soo saaraha intiisuu rabaa marka waxaan arki jiray lacag inta la qoonday jeebadaha ma xasuutaan la kala gelin jiray marka waxaan idhahdaa sharuurkii farsamayaqaanka sharuurkii agaasimaha sharuurkii madaxa wararka heerkaas ay maraysaa marka raagana kulley waa iga badiyaay saa uga socdo jaakad su'aasha ana ku darsanayo wax yar su'aashaas kale ayaa nooga jawaabi kara soo gabagabayn doonaa inkastoo nolol soo gabagabayn doonaa laakiin waxaa moodaa inay dadku nagu soo badanayaan su'aashaas qofkaas gabadha waxay leedahay waa qalbi axmed waxay leedahay waa salaamantiin dhammaantiin su'aasheedu waxay tahay sidee looga bixi karaa musiibada haysata suxufiyiinta Soomaaliyeed oo kala jeedo
hadday noqon lahayd dilalka loo geysanayo hadday noqon lahayd xariga loo geysanayo hadday noqon lahayd maaragtay dhinac kasta macnaha musiibo kastoo saxafiga haysata sidee looga bixi karaa waxaan jeclahay inaan su-aashaas aan saddexdiina aan maaragta idin weydiiyo afartiina oo qofba mar si uga jawaabo aan ka hormaro bulqaasoo watay haye waa tahay bal inta aanan su-aashan aanan u gelin wax yar iga ogolaada waxa weeye tii raage uu maxaa la yidhahdaa ka hadlayay oo sharuurka ma raba inaan ka hadlo waxa weeye dhanka qaabka aad oga hadasheen laakiin waxaan rabaa qaab kale inaan oga hadlo oo ah sharuurka dhibaato caynkee ah buu saxaafadii ama warbaahinta laftigeeda u geystay oo uu saameyn noocee ah uu ku yeeshay taa laftigeeda in la isweydiiyaa aad u wanaagsan sharuurku wuxuu dhibaatada u geystay saxaafadda Soomaalida waxa kamid ah waxaan war noqonayn waxaan hadda ka hor aan xasuustaa oo maraan seminar aan ku qaadanay dhinaca saxaafadda 2002 waxaan loo keenay ay baa nin qaniinay war ma aha baa nagu yiri laakiin nin baa ay qaniinay baa war ah macnaha ay baa nin qaniinay ay weligiisu wax qaniinay that's not news war ma aha laakiin waxa war ah nin baa ay qaniinay qof bini aadana oo asagii macnaha waxa way eegi intuu u tago macnaha qofkii bini aadanka wax qaniinaya markan warka lagu sheegayna waa noocaas saameyn ballaaran uu ku yeeshay warkii waayo waxaan war noqonayn oo maxaa la yiraahdaa oo aan u jeedno oo ama ku salaysan waxa weeye aad arkaysid bahasha laga oranayo sharuurka aad sheegaysa laga oranayo ba runtii waxa weeye ku badan saxaafadna oo waxaan war noqonayn dadka war oga dhignaa taasna waxyaabaha asaasiga ee saxaafadda caalamka loo aasaasay oo ahayd inay dadka wargeliso inay wax barto iyo inay madadaaliso mid meel ay ka soo galaysa haba yaraatee taas ma jirto haddii aan ku soo laabto tan gabadha walaashay ah oo ah sidee baynu uga bixi karnaa dhibaatada saxafiyiinta haysata aniga kale waxaan qabaa horta iyadoo ilaahay waxa weeye dawladdeena hadda jirto waxa weeye iyo midda bedeli doontaba waxa weeye noo adkeeyo oo dawlad maxaa la yiraahdaa awood leh oo dalka dhan ku baahsan oo macnaha waxa weeye inay noqoto iyo waxa weeye iyo waxbarasho in saxafiyiintu ay wax bartaan in qofka bini aadanka meel kasto uu joogo waxay Soomaalida ku maahmaahdaa Soomaalida yaan oranay maahmaah Ingiriisi waxay oranaysay no one is too old to learn nin waxbarasho kama weynaado macnaha taasi waxa weeye da walbo aad tahay waxa weeye qofka bini aadanka ah waxbarasho wuu u baahan yahay hatta kan PhD ga maxaa la yiraahdaa shahaadada PhD ga diyaariye oo haysta u baahan waxbarasho waayo wuxuu jaahil ka yahay baa jirta oo macnaha uusan aqoon marka waa muhiim in qofka bini aadanka ama waxa weeye qofka saxafiga ah waxa weeye uu wax barto marka qofkii oo naftiisii waxa weeye aqligiisii cilmi ku kabay iyo dawlad rasmi ah oo ilaahay waxa weeye maxaa la yiraahdaa oo weyn oo quwad leh oo ilaahay macnaha waxa weeye isaga qaadir u siiyo taasaan kaga bixi karnaa labadaas kaliya kaga bixi karnaa aniga kulay sidaan u arko oo aan qiyaasayo iyo qofka bini aadanka oo isxil qaama Abduli waa ma santahay waxaan yahow musiibada aniga hadda su'aasha gabadha ay soo qortay meesha ku qoran laba siyaaboodba waa u dhigi karaa waxay tiri sidee looga bixi karaa musiibada haysata suxufiyiinta Soomaaliyeed marka musiibadu ma midda iyagu dhibaatada soo gaarto oo dilka iyo dhaawaca iyo xariga ahba mise musiibada saxaafadu lafteeda ay geysanayso ba sidee looga baxaa ay tahay oo magac xumada ah marka midda waxaan ku hormarayaa dilka sidee iyo dhibaatada iyo dhaawaca looga bixi karaa waxa looga bixi karaa horta wadankii oo dhan baa dhibaato ka jirto oo ammaankeedu uu qalqal ka jira suxufiyiintana laba siyaabood baa dhibaato u keenaysa waxa ay tabinayaan horta inay iska hubiyaan oo ay sheegayaan hadda ka hor baa laba suxufiyiina oo Cabdinaasir Seero iyo gabar kale oo suxufiyada war barnaamijku ka dhaxgal gareer Cabdinaasir Seero barnaamijka martida ka qayb galayso kamid ahaa goor dhaweedo qoraal ii soo qoray oo xogaa shaqadu ku yardahay marka waa intaasna waxaan jeclahay inaan la wadaago waa ma santahay aad ma santahay waxaan asaga hadalkiisa u soo xasuusto waxaan rabaa khibrad waxa jirta wariyaha laftigiisa warka uu tabinayo haduusan iska hubinin
oo isan iska fiirinin waxa uga iman kara dhibaatadeeda hadhowti inuusan ka shalayn sababtoo marka hore uu haysto fursad inuusan iska fiirin hadda kahor baa idaacad ay joogaan waxaa ka dhacday war niman maleeshiya hadii la geystay dabadeedna warka Cabdinaasir kuma qornayna gabar baa ku qornayd dabadeedna gabadhii ku qornayd warkii waa la diyaariyay ninkii kaabaha ahaa idaacadda xukumay baa fiiriyay warkii markuu arkay buu yiri warka gadaal wax kaga daray maleeshiyada waa baxsadeen dilka geystaa la yirmo hoos buu kaga sii daray qalin inta qaatay buu yiri waxa ku tiraada waxay u baxsadeen dhanka xaafadaas minis xamarna waa taqaanay dhibaatada 2002 iyo meelahaas dhibaatada ka jirtay gabadhi ma dareemin laakiin sida ayadoo rabtay inuu aqriso Cabdinaasir qabtay markaas gabadhuna xaafadda la leeyahay u baxsadeen bay degantahay markaas yiri warkaan lagu dhibay qaybtan dambe qalinka iska tir ha sheegin haddaad sheegtidna adiga xaafadda u hooyanay dhibaato ka soo gaaraysa sababtoo lama hubo dad xaafadaas u baxsan hadaad idaacadda ka tiraadid dadka halkaa jooga oo dhowta adeeg ku qabsan doonaan waxay ku leeyihiin annaga dambiga dusha naga saarta annaga hadhowtina la soo weerara iyo maleeshiya kala ku helaysa marka gabadhii waa naxday markaas ku baraartay ku noqotay markaas tiri warkaan niyo ma akhrin karo qaybtan dambe anay nafsadayda qatar ku tahay aad ku dartay xaafadaydina waay yaana og inay sababta xaafadaan isku kala garanayay ninkii cabaar buu damcay adigu sheegay mayna magaciisa inuu diido laakiin waa ka yeelay markay gabadhii soo istaagtay sidaas oo kale waxaan rabaa wariyaasha hadda ka shaqeynaya gudaha dalka Soomaaliya ee duruufta adag ka shaqeynaya ee dulqaadka badan sameynaya in ay iska hubiyaan horta warka ay akhrinayaan ama barnaamijka ay sameynayaan si aysan dhibaato uga soo gaarin waa tahay garyare waa maadsan tahay halkaadoo ii jooga qofkan meesha ku soo qoray hadalkaagan hadda aad ka hadlaysid oo tacliiq ku saabsan yahay inkastoo af ingiriis noogu soo qoro aan jeclaan lahayn Soomaali noogu soo qoro wuxuu leeyahay waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wuxuu yiri waa ku mahadsantihiin barnaamijkan ama doodan muhiimka ah ee wadaan wuxuu yiri sidee ugu yeeri karnaa ama u dhihi karnaa waa xor saxaafadda Soomaaliya iyadoo aan ognahay in magaalada Muqdisho inkastoo Muqdisho kaliya aysan ahayn inuu dhaho oo yiraahdo meel kastoo Soomaaliya kamid ah ayuu leeyahay aniga ahaanteeda ama intaan ogahay ay saxaafaddu tahay beec oo ugu yaraan aad dadka ama wariyaasha iyo dadka iskale intaba aad ku martigelinayso programka ama barnaamijka aad qabanayso adoo lacagna siinaya oo iyaga iibsanaya oo dhahaya intaana in siinaya barnaamijkayga anoo ogu yiri waliba inay tahay taasina in ay rabaan inay noolaadaan oo nolol maalmeedkooda halkaas uu ku jiro marka soo lama dhigi karo hadiiba hay gareere waxaan jeclahay inaad fahantay wuxuu ka hadlay taasi horta tii waxaan aan soo dhamaynayaa dhinaca warka idaacadda meesha uu joogo waxa uu tabinayo inuu iska hubiyo sidoo kale waxa dib uga imanaya sida tan oo kale lacagta marka la siiyo oo wariyahan iyo maamulka iskale idaacadda ama TV-ga ama radio ama website-ka iyaguna lacag lagu siiyo oo war rabta inay gudbiso ay casumaan inaysan warkaasi sida aday xataa ka maarmi waayeen oo ay la gashay inay lacagta qaataan inaysan xitaa warka ay sameynayaan aysan horta u sameynin si iyagu dhaawac u geynaysa waa in ay qofkani dhahaan war lacagtaada ma rabe ee warkaan sameynaya hadduu anfacu yahay war caadiya hadduu xitaa u anfici waayana hadda waxaad noqonaysaa qof la adeegsado qofkaasaa ku yeerinaya habka qaabka u dhigaysid meelaha qaarkood waxaan ku arkayba aniga wariyaashu waa la casumaa dabadeedna warka suu u qoran yahay oo soo daabacan baa loo dhiibay waxa la yiraahdaa saan u qoran yahay saa u akhri adigu hadhowtina dee wariye ma tiyida akhriyaa tahay waliba af Soomaaliga wax meesha ku qoran kaliya aad akhrinaysaa kaas waxaan leeyahay midda labaad oo aan leeyahay waxa weeye adigu waliga shuruur ma qaata garyare su'aashaas lagu weydiiyay meesha sida kaaga muuqata xogta media wuxuu ku leeyahay waa Cabdiweli waa Cabdifataax wuxuu ku leeyahay asxaabta waxaan weydiinayaa waligiin idinku shuruur ma qaadateen haddii aad qaadateen maxaa kugu qasbay xilligaasi maxayna hadda u cambaareynaysan suxufiyiinta kale ee xaaladda ku shaqeynaya wali inteenan meesha ku jirna ayuu nala hadlayaa anagu hore ma soo qaadana shuruur haddaan soo qaadana maxaa nagu qasbay maxaa hadda uga hadlaynaa wariyaashii kale oo naga dambeeyay oo meeshii aan ku noolayn hadda ku nool ay u qaadanayaan maxaan uga hadlaynaa garyar hay halka kasii wada hadda ana ugu horeyn Cabdifataax video asaga magacaas ku tabayaa aniga shakhsiyan Cabdiweli garyar la yiraahdo anigu waliga horta shuruur ma qaadan laakiin waxaan ku sheegayaa warbaahinta aan ka shaqeyno ama television ha noqdo ama radio ha noqdo ee maamulayaashoodu kama marna in ay qaateen ama waxay u bixiyaan ayagu magaca lagu bedelayaa shuruur laakiin waxa lagu leeyahay guno marka idaacad iyo TV iyo radio meel kasta ka shaqeynaysid kama marna inay qaateen laakiin anigu shakhsiyan waligay ma qaadan waana nibca meelaha qaarkood inaan tago xitaa oon u tago lacagtaas darteed
waxaana kuu keenaysaa waa waxa hadda aan ka digayo warka sida uu yahay uma dhigi kartid milkiilayaasha iyo telefishinada ama idaacadaha ama raadiyaasha u shaqaynaysidna iyagu waxa kan sharuurka waxay u yaqaanaanba dee quud ay ku nool yihiin ay u furteenba oo ah dee waxa la iga rabaa satellite waxa la iga rabaa haddii la kuura guri iyo ijaar iyo koronto marka waxay ku habboon tahay mar waliba wariyaha anima eedeynayo wariyaashu malaha eeda milkiilayaasha leh lacagta la qaato wariye ma qaato waxa qaato milkiile isagaana sharciga iyo jadwalka degsaday sababtu u degsaday iyo baahida uu ka qabo iyo sida uu magacaas u isticmaalayo oo hadhowti dad lacag ka qaato warkoodu siduu balance ugu sameyn karo aysan umad kale dhibaato u keenin isagana u keenin iyo sidoo wariye madax idaacad madax banaan u noqon karto ilaa warkaaga dhan baa wada iibsanay horta milkiilayaasha dooda adag in la geliyo bay ku fiican tahay wariyaasha duruufta adag ku shaqeeya iska dhaafay kuwa dibadda jooga ba ayaga lacagtan aan ku sheegayay nidaamkan wararka ay sameynayaan lagu xiraa oo leeyahay hebel warka ka soo qaadaysa waa inuu lacagta inta bixiyo sababta marka ma aha wariyaha dhibka anigu targetkayga aamna waa u sheegaya kuwa kalena u sheegaya ma aha wariyaasha waa milkiilayaasha waa tahay waxaan jecelnahay inaan soo gabagabayno runtii aad bay u muhiim tahay in barnaamijyada qaybaha dambe yiraahdo CD ninka la yiraahdo su'aasha raja kale ka jawaabay ana diyaara waa idin soo wada CDO CD su'aal qabiya in aanu meesha uga tagno waa laga fiican yahay ma tagin waa joognaa maana laga jawaab rabaa in laga jawaab rabaa waa taan soo wada suga amaye aan soo wado horta nin badgalay waa nin badgalay ma qoyin ka yeeli maayo nin badgalay ma qoyin ka yeeli maayo macnaha waxaan ka wadaa bini'aadamka ama si macniyeysan lagugu siiyo wariyaha haddaad tahay sharuuro ku soo gaaray tusaale ahaan oo kale anoo kale nin aad u necab baan ahay sharuurka runtii markii alla laga cabsado oo nin iska macalin iska ahaayo oo warbaahintiisa intuu wato hawshiisana waxoogaa iska jeebkaygu ma marnayn laakiin maalmaha ka mid ah sharuur jeebka la igeliyo oo geeskan iyo geeskan waa yar diilay laakiin markaan arkay baasho inay roon tahay jeebka cuslaadana waa iska qaatay oo been xaaran lama diidi karo oo anigu waxaan aaminsanahay gaalka diin kartiisana si anigu maanta saliim iska dhigi maayo carruurta hadda soo koraysa ama dhalinyarta muqdisho joogtay rafaadsan ku eedeyn maayo eedeynta waxaan ka waday uun maane laakiin sharuurka waa isoo gaaray ama dee si isoo gaaro un baa iska yareyd maane anoo british waa isoo gaaray hadda sharuurkaas marka jawaabta waxa weeye haa qas meeqaad qaadatay ilaa shay inaad qaadatay taasi waa si baan malaynaya ma qaatay wadii ninka odayga laga leexdo lagu darin baa president qaasay jacket baan rabaa aniga jacket baan halo jacket ay sharuurkayna waxba ku rafaan waa laga hadlay runtii wax jira inuu yahana waa la og yahay oo waanu iska warqabnaa inagu bahdeena haddaan nahay waanu iska warqabnaa jacket waxa soo wadaa ma qaadan jacket ma qaadan ma soo wadaa laakiin waxaa jira haddii aan wax yar ka taabto sharuur sharciyeysan iyo sharciyeysnayn jacket baa inta soo go'aysa sharuur sharci ma galo waa sharci darro mar kasta waa sharci darre jacket waa ku soo gaareen haa oo ma yal rabaa libaxnimadaas wax kale ma aha siduu u kala badan yahay oo u kala sharciyeysan yahay maahana wax kale ma jiraan waxaan rabaa keliya marka laba arrimood keliya inaan ku soo koobo horta dhalinyarada hadda saxaafadda ka shaqaysa shuruurkan waalidka loogu yahay ee maqlay qaatay haddana saxaafadda ku soo biiray iyo kuwa ku soo biiraya intaba in uu sharuurku yahay wax aad u xun ayaan horta marka hore rabaa inaan u sheego runtii wax wanaagsan ma aha waa wax sharaf dhac ah waa wax quursi ah waa wax aad u liita marka runta aynu ka wada hadalno ilaa waxaynu ka hadlaynaa waa meel lees wada maqlayo lees wada og yahay middaas waxaan rabaa dhalinta soo koraysa inaan ka waaniyan u sheego oo aan dhaho ogaada xataa haddaad qaadanayso ku talagal wax liita inaad qaadanayso tiro kastaba ha ahaato iyo cadad kastaba ha ahaato lacagta iyo waxaad qaadanayso middaas waa middaas midda labaad asxaabay saxaafaddu waa waddo toosan waddada haddaad dhankan uga bayrtana waad khaldamaysaa haddaad dhankan uga dhacdana waa kasii daranta
innaga sida sheekadu nagu soo gaartay xilligii dowladdeennii dalka ka jirta ee dhacday saxaafad xor ee dalka kama jirin oo raadiyaha iyo jaraa'idka iyo telefishinka dowladda uunbaa laga ammaanin jiray kana hadli jiray maantana saxaafadda xortaa markay timid ee la helay waxaad moodaa in dhankii kale looga gudbay sida aan aragnay oo wax kasta la qoro wax kasta la sameeyo labada dhanba sida saxda ma aha tusaale waxaan u soo qaadanayaa raadiyo muqdisho markii aan joognay aan ka shaqaynaynay raadiyo wuxuu ahaa saydaraysan oo qolo hoos taga oo maamul leh yani maamulka guud wixii afkaara ee iyagu aaminsan yihiin unbaa looga hadlayay markii dambena waxaan ka shaqaynaynay idaacaddii dambe ee Horn Africa la dhahayay Horn Africa 10 sano muddo aan joogno ka shaqaynaynay waxay saxaafad madax bannaan idaacad madax bannaan ay ahayd wax badan ayay ku kala duwan yihiin labada dhinac Horn Africa waad ogtihiin intii ogeyd hogaamiye kooxeed ha dhihin islaan qashin xaaqaysa ha dhihin mid dowladda wasiirka ha dhihin ciday doonto ciidan ha ahaado mid dhulka tuugsanay ha ahaado cid walba waa la waraysanayay ee ay suurtagal tahay in barnaamijkaas uu yahay mid dadku u baahan yihiin qofka wariyaha waxa laga rabaa ee uu gudbinaya waa in ay yihiin wax horta bulshadu u baahan tahay marka hore innaba ha la ekaatee bulshadu waxayse u baahneen in la gudbiyo maba ahaba maantana waxaan u jeednaa waxa la gudbinayo 80% in ay yihiin wax aan mudnayn in la gudbiyo aysan ahaan yacan xagga saxaafadda okay waxa meesha ka baxday ethics-kii saxaafadda ama akhlaaqdii saxaafadda ay lahayd waa ka baxday meesha dad yar oo kooban ayay ku soo hartay midaas waxaan ka codsanayaa marka saxaafadda ilaalisa akhlaaqda iyo asluubta wanaagsan in ay midda kalena u sheegaan iyo asxaabtooda saaxiibadu ay dhahaan war wadadu halkan ma ahaan jirine halkana la mari jiro toosan ee qaloocan ka soo leexo qofka saxafiga ee ku socda wadda qaloocan ee uu og yahayna waxaan leeyahay ogow waxaad ku tegaysaa meel aad u xun ayaad ku tegaysaa waddadan ay ku geynaysaa waxaan rabaa inaan sidiyow ku soo gabagabeeyo saxaafadeenna iyo caafimaadkeenna iyo isboortigeenna iyo hay-ad kasta oo aan leenahay Soomaali markaan nahay ciidankeena ku daro mas'uuliyiinteenna dalka ugu sarreysa ku daro waxaana xakameeyaa waa wanaagga ay xambaarsan tahay saxaafaddu ciyaarta kubadda cagta ama midday doonto ahaatee garsoore la'aanteed suurtagal maaha in ciyaar la qabto saxaafad xor ah la'aanteedna suurtagal maaha inaan horumar gaarno waayo saxaafaddu waxay dhexdhexaad u tahay garsoore u tahay dadka shacabka iyo dadka maamulka haya markaa waayo maamul kastaa wuxuu isku dayaa inuu wax sameeyo waxna inkiro dadkuna waxay isku dayaan inay ogaadaan maamulka wixii uu ka khalday ka khiyaameeyey cidda soo saari karta ee ogaan karta ee runta ka hadli kartaana waa saxaafadda xorta ah waxaan rabaa midda in caawa meel lagu qoro oo la ogaado inay sidaa tahay dadkeenna Soomaaliyeed aqoontoodu intay doontoba hala ekaato waxaa la gaari doonaa waqti dadku wax fahamsan yahay oo dadweynuhu fahamsan yahay oo dadka media ka shaqeeya ay fahamsan yihiin wax badan waxa naga dhimani waa laba arrimood waa dalka oo hagaaga oo dastuur toosan la helo iyo dadka aqoon yeesha si ay u fahmaan dhanka kale wanaagsan waa labada kaliya iyagana waanu gaaraynaa waqti ay noqotoba waxaan rabaa marka in waxa qaldani ma aha saxaafadda oo kaliya maanta annagu saxaafadan ka hadlaynaa laakiin waxa qaldanay saxaafadda oo kaliya maahane jamhuuriyadeennii oo dhan dadka jooga intooda badan shacabka caadiga markaan ka reebo intooda badan qalad badanaa jira dawlad ha dhihin hay-ad ha dhihin dhinac dagaal ha dhihin dhan walba markaad soo qaado khaladku ma yara war dadkan tawfiiqda laga qaaday dadku inta duceystaan ilaaw tawfiiqdina waafaji oo noo kana dhahaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa calaykum salaam waa maadsan tahay waa soo gabagabaynaynaa laba daqiiqo aan siiyo horta intaada soo gabagabayn mulqaas jawaabta labada jawaabood ka jawaab labada su'aal aad baad u mahadsan tahay garyar haddaad ii soo tuurtay waa geliyey horta bulqaas soo koob fadlan waa soo koobaya idinka waxaad ka hadasheen oo keliya dad unbaa cilad saartay oo eedda aad saarteen oo ah dabcan waxa waye mulkiilayaasha warbaahinta way qurux badnaan lahayd caawa mulkiile
idaacadeed ama TV inuu caawa halkaan nala fadhiyo waayo waxa barnaamijku wuxuu noqon lahaa marka qaabka aan wax uga sheegayno wuxuu noqon lahaa balance buu noqon lahaa oo si cadaalad ay ku dhisantahay buu noqon lahaa laakiin anigoo aanan mulkiilo warbaahin aanan ahayn oo aad ila socotaan oo bulqaas waxa weeye nin wariyaha hadii taqaaniin haddana waxaan oran karaa aniga ahaan horta marka aan tan sharuurka aan ka hadlo xilligan saxaafadda kusoo biirayay wax yar ma lahayn waxa weeye horta waxay sharuurkan iyo waxaan uu soo caanbaxay waxa weeye 2005 iyo wixii ka dambeeyay baan filayaa inuu caadi noogu soo caanbaxay oo waxa weeye oo balka banaanka horta alxamdulillah aniga marka aan xaqiiqda aan ka hadlo ma qaadan sababtoo ah waxaan ahaa nin macallin ah waxaan ahaa farmasiste oo farmasiin macnaha dhinac haddana ganacsi uga jira baan ahaa shaqooyinkayga runtii iska badnaa qofkii yaqaano kolay waxa weeye marka macalinimada iyo farmashiga iiday hadda labada hayn lahayn waa qaadan lahayd macnaha marka kolay qasbiyan qofka bini aadanka hadduusan meel uusan ku tiirsanayn uu aysan jirin waxa weeye waa qasab waxa weeye wax ka celinaya ma jiro waayo bulqaas saaxiibkii bulqaas saaxiibkii bulqaas su'aal baan rabaa inaan weydiiyo British soo gabagabay waqtiga naga horta maamaha waxaa dhihi jirtay raggu saddex baa ka sameeyey magaca iyo maalka laakiin maskaxda uu kala duwan yahay laakiin aniga adigu waxyaalaan ka simanaha jira macallin baad ahayd macallin baan ahaa oo dhanka ama luqadaha ama saxaafadda shaqooyin kalena waan lahayn anoo saasoo kale midna saamaysay waa tahay waxaan filayaa Cabdiraxmaan intaadan gabagabeen wax yar iyo gol hal dhamayso British dhamayso waxaan rabaa khiyaaray inaan soo gabagabeeyo marka waxaan rabaa bal inaan laba daqiiqo inaan siiyo anoo og 2 daqiiqo iyo 5 daqiiqo noo tahay 2 daqiiqo insha Allah aan shirkad British qadka ka go'ay dabcan intaadan okay aan soo marka hadalkayga ana hadalka ku watay aan ku weydiin haye ana hadalka bulqaad ma weydiiyaa su'aal mise waa hadalka dhamaysanaysaa hadalkan dhamaysanaya tan kale waxa weeye tan kale maxaa la yiraahdaa ii diidaysay inaan qaato maxaa la yiraahdaa waxaan la yiraahdaa sharuurka waxay ahayd xilligii 2005 wixii ka dambeeyay waxaan ahaa anigaaba waxa weeye maamulka TV ka tirsanaa oo waxa weeye agaasimo ku xigeen baan ahaa ma ahayn marka nin magaaladii intuu war doono oo waxa weeye qodoboreed soo diyaariyo oo laakiin waxa weeye nin badana stuudiyaha iyo xaruntii fadhiyaan ahaa taasna waxa weeye laftigeeda way iga xijaabtay baan oran karaa runtii waxa weeye wallahi CDO British ay CD wad maqlaysaa soo ma waa ku maqleynaa waa codkaaga u gudnaa maqalkaaga waa maqleynaa qof baa hadal waday haye soo gabagabay bulqaas marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa ogahay barnaamij badan weeye u baahan waqti badan u baahan hadda hal saac ay 40 daqiiqo ahayd saacad iyo baraan sii dhaafnay hadii waa tay soo gabagabeynayaa marka tan laftigeeda waxa weeye inaan ku eedeyn kaliya waxa weeye dadka milkiilayaasha laftigooda waxa weeye waa dad furtay idaacad private ah waa dad doonaya waxa weeye inay lacag ka helaan oo ay sameeyaan qaabka kaliya ay ku sameyn karaan waxa weeye in idaacad ay u adeegsadaan qaab ganacsi ahaan unbay noqonaysaa taana kama marnaanayso taasaan aniga ku dari lahaa anoo maxaa la yidhahdaa u cadaalad falaya marka waxyaabihii badnaa ee aan ka sheegnay mulkiilayaasha aan ku riixnay oo mulkiilayaasha kolay waxa weeye anaa hadday booska maadaama ay maqan yihiin taas ay ku qaboobaan oo waxa weeye ogaadaan in waxa weeye laftigooda taa aynu ogsoonahay oo aan ogsoonahay sharuurka sharciga weeyse wax u dabaraan aad ma ayaga horta qaab sharci ahaana bay la tahay waayo dukaan furtay oo kale saxaafadii waxay noqotay qof dukaan furtay oo kale qofka dukaan furtay waxa weeye wax walba oo laga iibsanayo CDO aniga aan soo marka bulqaas waan salaamay jacket adigu iga raali ah waxaan rabaa inaan barnaamijka haddii ilaahay ka raali noqdo horta habeen kasta oo sabti ah maalinta sabtiga tahay habeenka axad soo galayso insha Allah barnaamijku waa wadi doonaa
isagoo weliba intaan marka aan jecelahay inaan xagga quality-ga xataa qaybaha qoraalka iyo waxyaabahaas quality-gooda waa jecelnahay ay gareere waa maasan tahay inkastoo aad kaabiga u hayso barnaamijka inaad soo afmeerto laakiin adiga waxaan rabaa inaan kugu celiyo su-aalashan aad safka nooga marto aamna bilaabay adigu sidaad u aragta laftaadu ilaan muqdisho waa kasoo wada shaqeynay meelo badan ilaa hadda waa ku jirtaa sharuur ma ka badbaada adigu runtii su-aal adag baan idin weydiiyey markii hore taa waa qirsanahay inkastoo nala soo weydiiyeyna qofna soo weydiiyey dabcan sharuurka inta badan wariyaasha waxaa loo kala qaybiyey laba loo kala qaybiyaa wariyana waa wariyaasha ka shaqeeya stuudiyaha oo xarunta ku shaqeeya wariyaalna waa wariyaasha banaanka loo diro marka sidaan is ognahay inta badan dadka wararka banaanka ka keeni jiray ayaa sharuurka u badnaa anigana intii aan ka shaqeynayay Horn Africa ama Radio Muqdisho aan ka shaqeynayay labada meelood labada meel waxaan ku shaqeynayay qaybta stuudiyaha oo waxaan ahaa dadka subaxii shaqada soo gala xarunta yimaada habeenkiina meesha ka taga am galabtii ka laabta oo waxaan ahaa reporter ma ahayn macnaha marka taasaan kaga badbaaday ee moogii laftigeyga waxaa suurtagal ah in ila siban lahayn reporterada dambiga dusha ka saaraysa waxaa jiri jiray dad barnaamijyo soo saaro xarunta joogo iyaguna qaata sharuurka marka warnimayo anigii jeebka Cabdiwali Ibrahim Gariyare anoo jeebka la igeliyo qaadanba waan sheegay miya waxa looga maraa wallahi gacan kuma qaadan jeebkaaba la igeliyo nin baa igu qasbayo igeliyo waa qaray marka yaan la isku wareeg niga daayay jacket ku gabageenaysa jacket soo gabagabay adiga qaybtaada noo soo gabagabay jacket intuusan galin wax yar aan ka taabto maxaa la yiraahdaa British qofka waxay ku xiran tahay laftigeeda sababta uu warbaahinta u soo galayna way ku xiran tahay aniga ku xirnaa toota ma diidin aniga mid ban Cabdiwali Ibrahim Gariyare ku taageersanahay aniga Allah laga cabsado si bay qof shanteena meesha taagan ba u soo saameysay ama koob shaah ku soo qaatay nin soo qaatay sharuur ku shub oo maqaayad intuu ku geeyo cunto ku sii aniga mar kale aan ku celiyo inteenaba waa ina saameysay hadda ka socono barnaamijka meel kale aan gallo planetka waa taa British xogaa networkaaga Cabdiwali gari aan u sugno jacket haye jacket horta marka hore Cabdiwali Gariyare waa salaamaya iyo Farax Bulo oo soo muuqday laakiin maaragtay khadku si ka noqday waxaan kala salaamayaa dhammaan asxaabta ay ahayd caawa inay barnaamijkan ka qayb qaataan laakiin ay u suurtagal weyso runtii iyo dhammaan inta daawatay ama akhrin doonta ama daawan doonta dhammaan waa salaamaya marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ugu dambeynta hadalkayga آياتي هدايا أخريي أهد قفك إن أدونك نلا حساب تمايو وهدو خالد الدولة دم هي أدو إلى حساب تمايو سو شعب يقول حساب تمايو آخرنا أي حساب كلا أطالو سيدا درتيت أو توسيو وحكستا أو شعبك إنه وحقو سمايو أي تاي وهجاتيو دات كان دبوا كسو دالين رفض وكسو دالين دقال وكسو دالين حتى wax walba waa ka soo daalan anigoon kala soocin wax walba oo xumaan oo lugoy waa ka soo daalan intaasoo sano ayay rafaad ku jireen dadkan waxaan rabaa kaliya marka qofka Soomaaliyeed ee isku daya in uu wax qoro ama wax sheego in uu qoro ama sheego wax wanaagsan oo ummadda wax u taraya taas ayaan maaragtay u sheegayaa dadka dhan in ay sameeyaan waayo waa ku celiso waa sax waxaa naga batay xumaantii waxaa moodaa inay 80% marayso wanaagii 20 noqday si ay isu bedelaan oo wanaagu 80 u noqdo 20 kuna xumaanta u noqoto in aan wax walba isku dayno in aan bedelno oo aan kacan cusub sameeyno oo arrintan oo kale ay qaybta koobad ka tahay inaan uga hadalno mar walba waana mahadsantiin dhamaantiin waxaan leeyahay Cabdiwali haye maxaad noo soo gabagabeynaysaa waa mahadsantahay aniyahow waxaan aniga rabaa inaan kugu soo gabagabeeyo midda ugu muhiimsan waxaan maleynayaa sharuurka aad baa loogu raftay waqti badanna waa nooga lumay laakiin midda ugu muhiimsan aan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto waxa weeye dhalinyaradana daawanaysa saxaafadda ku jirta meel kastoo dunida ka joogaan waxa ugu muhiimsan ee aan luminay ee lagu dheelay ee dhalan rogmay waa isticmaalka ereyga ku haboon hadda warka aad tabinayso Soomaaliga baa lumay wariyaasha Soomaaliyeed ee hadda jecel ama ku jira saxaafadda ee warka soo tabinaya waxaan rabaa iyo tafatirayaashaba inaan kula dardaarmo in waxa
ay qaabka ay warka u sameynayaan iyo ereyada isticmaalayaan si fiican isaga hubiyaan maxaa yeelay waa dhaweyd waxaan daawaday report ama warbixin laga soo diray muqdisho oo wariyadan uu leeyahay magaalada muqdisho waxa baryahan si habsami leh uga socda qaraxyada marka bal qarax iyo habsami socod meel ay iska soo galaan wax anu ma garanayo iyo Soomaaligaas isagoo haduu qalday oo qaraxaas iyo wareerkaas laga yaabo inuu wareeriyay tafatirihii xaruntii London ay ku taalay oo warka 3 galabnimo ilaa ay habeenka dambe u socday iyo mar walba ninkan akhrinaya xataa ma dhageysanayaan ma joojinayaan waxa kan la sheegayo maxay tahay la sameeyo marka waxaan anigu leeyahay war Soomaaliga la isticmaalay si fiican hal isagu ogaado oo hal lagu dadaalo luqadda wax barasho koow waxa horta ka bilowda wax kale ma kaadiya dad wax kale aadan baranbe ama aad waqti kullu min aad leedahay waqti lumis bay noqonaysaa luqadda aad wax ku gudbinayso si fiican u faham oo garo maalin dhaweedna sidaas oo kale bulqaas sila arkayna warar la soo diray oo si qalada dhinac loo wada dhinac kale loo wada marka taasaan anigu kula dardaarmaya wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan waxa si kale ugu hambalyeynaya sida geesinimada ay u shaqeeyaan duruufta adag anagu waa soo baqaarnay niman baqaarar ku soo baxay oo haddana raba inay saxaan niman cabsidii ku jiraan nahay marka waa toosin mooye waa naga geesantiin dadaalkiina waa idinku hambalyeynayna laakiin sida u dhaama saxaafadda waa maasantiin waa tahay bulqaas noo soo gabagabay waa soo gabagabaynayaa tan cabdiweli baa aad run ahaantii aad iyo xasuusiyey oo ah saxaafaddu ama maxaa la yiraahdaa warbaahintu waxay ahayd Soomaaliya ka ahaan jirtay waxa kaliya ee qofka bini'aadanka amaba adduunka oo dhan waa meelaha kaliya ee afka luqadda laga barto hadda wadankan aan joogo macallimiinta luqadda maxaa la yiraahdaa Swedish oo kale markaan baranayo waxyaabaha ay kugula talinayaan waxa weeye idaacadii dhageyso TV-gii daawo macnaheedu waxa weeye waa luqadii saxda ahayd baad ka baranaysaa laakiin Soomaaliya waxaad moodaa hadda maalmahan dambe in waxa weeye ay taasi meesha ka baxday sida saaxiibkay garyare uu sheegay waxa jirta siiba warbaahinteena siiba TV-yadeena waxa weeye waxa laga yaabaa in ay ka baxdo ergeyga gaarkay qaramada midoobay in uu hadlo oo waxa weeye inuu hadlo oo Soomaaliya uu ka hadlo sidiisa codkiisa baa la soo gelinayaa lama turjumayo qofka aad wax u sheegayso waa inaad horta ogaataa in ay tahay waxa weeye hooyo Soomaaliyeed oo laga yaabo weligeed inaysan waxa weeye wax qori aqoon oo wax akhrin aqoon oo guri fadhisa ama meel fadhisa inay tahay inaad wax u sheegaysid oo warkan inaad macnaha waxa weeye aad gaarsiisid inaad doonaysid dadka horta taas waa in ay saxaafadeena inuu isla fahanaa oo luqadaha qalaad waxa arkaysa dad barnaamijyo ka soo muuqanaya oo barnaamijkii markuu u wado annaga laftigeena hadda markaan barnaamijka gudaheeda aan isticmaalayno waxa ereyo Ingiriisiga inkastoo aynu turjumayno laakiin anigu ma qabo in luqad qalaad loo isticmaalo marka la isticmaalayo ama war la tabinayo ama warbixin la sameynayo in afqala hadii afqalaad uu soo gana waa in dadka loo turjumaa taasaan qabaa taas oo af Soomaaligeena waxa weeye ay si daciifayo waa maadsan tahay British noo soo gabagabay waayahay horta waan salaamaya mar kale gabagabayda ana waxaan dhihi lahaa wacdi waxa la yiraahdaa alla ka cabso ka bilowda warbaahintuna waxay ka bilaabmataa cilmigeeda in la barto in cilmigeeda la barto muwaadin la noqdo alla laga cabsado waxa la qoraya ay tahay wax wanaagsan ee ku soo gabagabay